sidii aad kala socoteen wararkaygii kala duwanaa madaxweyne Carro maalinta beriya waxa uu ka qayb galayaa xuska 12 guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba waxay ku beegan tahay 2 February 1994 markii ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ah dhidibada loogu taagay, isla markaasina ay beeluhu hubkooda markii ugu horreeyay wareejiyeen oo ay ku wareejiyeen dawladdii Allah u naxariistay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. wariye Axmed Saciid Cige oo in badan laanta afka Soomaaliga idaacadda BBC-da la soo shaqayn jiray ayaa goobjoog ahaa ka horna warbaahinta Soomaalida ku soo jiray oo si weyn ugu dhown daloola taariikhda Soomaaliland. wariye Axmed Saciid Cige waxa uu xidhan yahay garan cas oo xagga hore ama laabta uu kaga sawiran yahay ama way kaga sawirantay maapka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaca Soomaaliland uu ku qoran yahay. khadka WhatsApp ayaan kula xiriiray wariye Axmed Saciid Cige. soo dhaw marka hore bal waxaad iga warantaa maalintaasi sida ay ahayd, adiga qudhaadalma waxaad xidhan tahay garan cas sida sawirka ka muuqata. axmed saaka waad mahadsan tahay. sawirkan aad aragtay garamka aan gashanahay cas ee maabkii Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yaalo xabadka hore uu ku yaalo ee dadweynaha faraha badan ee fadhiya gegida kubadda cagta ee ciyaaraha ee magaalada Hargeysa Stadium wuxuu yahay 1994 xilligaasi oo raantiisii la bilaabay hubdhigistii ama abuurista ciidanka qaran oo beelihii SNM ciidankoodii iyo hubkoodii maalin walba waqti loo cayimay ama se loo qorsheeyay maalin dabadeetana ay hubkooda ay si iyagu iskood ah iyadoona cidna khasbin ay ku soo wareejiyaan si markaasi ciidan qaran oo tayal leh oo tababaran oo dishibilin leh oo isku dhafa markaasi ay u yeelato Jamhuuriyadda Soomaaliland. waqtigii ay ahayd xilligii madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo naxariistay madaxweyne xigeen Cabdiraxmaan oo Cali Faarax. markaas sawirkaasi anigu waan ka qayb galayay oo waxaan ahaa markaasi si mutadawacnimo ah madaxweyne Cigaal iga codsaday aniga rag kale oo markaa kuliyadda saxaafadda ka soo baxay in jariirad markaasi labadii toddobaadba mar soo baxdo marka wareejinayo Colombiya ay wareejinayso ciidanka inaanu markaasi aan tabino oo sawirro fara badan iyagoo ah lagu ladayo wargeeskii ugu horreeyay markaasi la sameeyay ee afka dawladda ku hadla oo qarni Afriqiya la oran jiray oo taariikh dheer leh qarni Afriqiya oo ah wargeesadii soo bixi jiray gaar ahaan wargeeskii xisbigii SNL ugu weynaa ee xorriyadda 26 June 1960 Soomaaliland ka qaatay Ingiriiska dhaliyay ayuu magacaasi u bixiyay. mar dambena waanu bedelay oo qarni Afriqiya waxaan ku bedelnay isla geeska Afrika. markii geeska Afrika markaasi anigu aan ka tagay dabadeetana markii dambena waxa loo bedelay Maandeeq ka bacdina dawan waa ka wargeeska afka dawladda ku hadlayaan qori jiray oo markaa dadweynaha markaa wareysanayo aan ku dhex jiray. markaa sawirku waa sidaasi. wahagaag Axmed, marka hubka la wareejinayay ee marka ciidanka qaranka aasaaskiisa lagu bilaabayay maxaad ka xusi kartaa? Axmed, ciidanka beelaha ay wareejinayeen iyo hubkoodaba waxa weeyaan qoryo fudud iyo kuwa culus ee la yiraahdo tiknikada haday ahaadaan gawaarida saaran ee qoryaha dhashiikaha, qoryaha kale ee shilkaha la oran jiray, kuwa kale suuga, kuwa kale ee brownka way badnaayeen. waxaan hubkan kale ee lidka taangiyada B10ka iyo kale kuwa kale ee la midka ah ee jiibka lagu rakibo, gawaarida jiibka lagu rakibo. marka way fara badnaayeen oo hubkii SNM ay la soo gashay ku xoreysay dalka ayuu ahaa 1991. marka beel waliba iyada oo madax dhaqameedkoodii, aqoon-yahankoodii, siyaasiyiintoodii, shacabkoodii, haweenkoodii, dhalinyaradoodii ay hareeraha ka taagan yihiin hogaaminayaan halka la isugu yimaanayay saad aragto ee garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa u buuxo ayay dabada la keenayay. waana uu socday markaasi ololahaasi ilaa iyo uu socday 1995. laakiin maalintan 2 bisha February 1994 maalin weyn bay ahayd. beeshii ugu horreysay
oo suldaankoodii Allah u naxariistay suldaan maxamed suldaan faarax oo isaga laftiisu nin ciidan ahaan jiray ilaa ingiriiskii uu hogaaminayo oo SNMna ka tirsanaa ayaa ay ahayd maalintii ay ugu horeysay ciidankooda beeli ay wareejiso ayay ahayd aniguna goobjoog baan ahaa dabadeetana maalintaasi waa maalinta loogu magac daray markaasi maalinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo daymakaynu xusayno sanad guuradii 32aad ay ka soo wareegtay maalintaasi oo daymaka waxa weeye 2026 weeye markaana 1994 bay ahayd marka 32 sanadood ayaa ka soo wareegay taasi waa sida 32 ka sanadood dabcan waxa soo maray hogaano kala duwan ciidanka qaranka magacyadoodii maxaad ka xasuusataa ama nooga sheegi kartaa taliyaal badan baa soo maray ciidanka qaranka oo goobjoog aanu ahaa taliyaha markaasi aanu la shaqeynay markaa jariyadaan soo saari jirnay wuxuu ahaa taliyihii ugu horeeyay markaas ciidan nidaamsan markii la sameeyay wuxuu ahaa Colonel Xasan Cali Abakorde waa generaal markaasi ayuu dalacay ciidanku may lahayn darajo may xidhan jirin laakiin darajadoodii hore ayay lahayn lagu yaqaanay oo markii xataa jabhada lahaa Colonel u badnaayeen ragii mujaahidiinta ahaa marka Xasan Cali Abakorde waa taliyahaasi waxa ku xigay markii dambe Cismaan Dacas Ilaahay u naxariisto taliyihii labaad waxa ku xigay Xasan Yunis Habane Ismaaciil Shaqalle Allahumma salli ala Muhammad Abdi Samad Xaaji Cabdilaahi Gamgam intaan ka xusuusto waxa ku xigay Nuux Taani waxa ku xigay Sheriif haddana waxa ku xigay soo noqday Nuux Taani oo mar kale qabtay waxa kale oo deela imakana haya General Nimcaan marka intaasi baan xusuustaa ragga badidooda markaasi intii waliba markii dambe BBC da ka shaqeynayeen waa la soo shaqeeyo xiriir badan baan lahayn marar ay dagaal ku jireen iyo marar ay nabad haydba hambalyana waanu dirayaa ciidanka qaranka oo saraakiisha iyo gidi aad baan isu naqaanaadna way ixtiraamaan والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاس وحوها وريه هراء اللان تافك الصومالي إذا عد BBC ده وقصة ورمجري صومالان أحمد سعيد عيقة كهرنا وربهين تمددير كسو جري أولون ضلالة تاريخ دا هي مرحلة هي كل دواناء جودهان جيجا الصومالي دا قارهان تاريخ دا الصومالان وراركي ودن بيي إسلام ركاية دعيان كلاسعو برتوري أحمد ساكو برنامج xiisa leh iyo warbixino ku raali geliya ayaad maalin walba halkan ka helaysaa ee ka daawo